بسم الله الرحمن الرحيم صاحبada aynu habada ku saaxiibnay oo ku soo dhawaada idaacada Isha Kafarta warkeena maanta ugu door koron waxa ka mid noqon doona maqaayad ku taala xaafada Bulxuwe oo ay weerar ku qaadeen dabley ku hubeysan af iyo tar banaan ay soo abaabuleen beelaha baranbaro dhilqi iyo dhilmaayo cabasho balaaran ka muujiyay la wadaagista murdiga madow ee dadka lax ku marqaantay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho taasi ay dirayaan reer Wariiri Xasan Jilac faafin sahmiyad aroos oo ay dirayaan reer Leeba Qatar intaas iyo in la mid ah waxa ku soo dhawaataan warkii oo fidsan aynu ku bilaabnay tacsiyo Wariiri Xasan Jilac warkaas oo faahfaahsan waxa inoo haya wariyaheena arkay taasi ay dirayaan Wariiri Xasan Jilac Bulac awayso lugaali geedi dabaqala farbadni Yuusuf injir qanjeel qaasin dhammaan dadkaasi waxa ay tacsi tiirayeen leh u dirayaan qoyskii ehladii qaraabadii iyo asxaabtii uu ifka ugu tagay Rabbi samari iimaan kama siiye marxum Jiljildiiq oo ku geeriyooday xaafada Saxaraad kaasi wuxuu ahaa wariyaheen arkay inuu soo gudbinayay tacsi ay dirayeen reer Wariiri Xasan Jilac qodobada xiga warkeena waxa inoo xiga banaan ay soo abaabuleen reer beelaha balanbaro dhilqi iyo dhilmaayo warkaas oo faahfaahsan waxa inoo soo gudbin doona wariyaheena Mucaad wadooyinka waaweyn ee Muqdisho waxa isugu soo baxay beelaha dhilqi iyo dhilmaayo iyagoo oo kaamdarcoonaya warshadaha soo saara sunta bifbaafta banaanbaxaasi waxaa ka hadlay Ayax Geediraage oo ah hogaamiyaha cayayaanka isagoo adduunweynaha ka codsaday in la yareeyo sunta bifbaafta si xornimo buuxda ay ugu noolaadaan dhilqaa iyo dhilmaayada kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Mucaad qodobka inoo xiga waxa inoo xiga dameero cabasho balaaran ka muujiyeen la wadaagista murdiga madow warkaas oo faahfaahsan waxa inoo soo gudbin doona wariyadeena Fartuun dameeraha ayaa cabasho balaaran ka muujiyay la wadaaga murdiga madow ee dadka Jaakir Bisnaq oo afhayeenka dameeraha ah ayaa ku nuuxnuuxsaday inay weerari doonaan dalagyo waaweyn oo ku yaala wadanka beeraha hadii ay dadka aanan ka waantoobin cunista murdiga madow dadweynuhu waxay heli karaan cunooyin kale ay cunaan anagu sameeysan waxaanan murdiga ahayn sidaas ayaa ku nuuxnuuxsaday Jaakir Bisnaq oo faahfaahinka dameeraha taasina waxay ahayd wariyadeena Fartuun qodobka inoo xiga waa tahmiyad aroos oo ay dirayaan reer Leeba Qatar warkaas oo faahfaahsan waxa inoo haya wariyaheena Ismaaciil tahmiyad aroos miishaar Leeba Qatar burus Leeba Qatar kashaweeta Leeba Qatar safiicad Leeba Qatar Qatar Leeba Qatar iyo dhammaan reer Leeba Qatar waxay tahmiyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosada faraska iyo geenyada farta iyo faraantiga dhalada iyo kaaseedka tinta iyo taakada waa afuro Leeba Qatar iyo quful sanduuq xasan oo aqalkoodu ka dhacay xaafada Sakatuuro waxaanu leenahay isku mawaartiin wixii idinka haran arkaynaa kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil oo inoo soo gudbinayay tahmiyad aroos warkeena inoo xigana waxa inoo xigi doona urus oo lagu qaaday maqaayada Bulxuwe warkaas oo faahfaahsan waxa inoo soo gudbin doona wariyadeena Caaw maqaayad ku taala xaafada Bulxuwe waxa soo weeraray dabley ku hubeysan af iyo farkeed kadib markii ay sameeyeen dadkii maqaayadaasi ku sugnaa sambuus dhaawacaya la wareystay waxa uuna ii sheegay falkaasi in ay ka dambeeyeen malaashiin af iyo calool qoftaasina waxay ahayd wariyadeena Caaw waxa inoo xigi doona qiimaha wariyaaga oo sare u kac warkaas oo faahfaahsan waxa inoo soo gudbin doonta wariyadeena Maayid qiimaha wariyaaga ayaa sare u kacay kadib markii ay arintaasi bisuduhu cabasho balaaran ka muujiyeen bisuduhu waxa ay sheegeen inay weerari doonaan kawaano waaweyn hadii aynu wax laga qaban qiimaha wariyaaga aad baad u maasantahay wariyadeena Maayid waxa inoo xigi doona oo qodobka ugu dambeeyay qarax ka dhacay Tarbuunka oo inoo soo jeedin doono Mucaad qarax ka dhacay Tarbuunka waxa ku geeriyooday baranbaro gaari gacanliya halka Bulac labandaayista ana uu halkaasi ku geeriyooday xog xol ogaal ah oo ka soo baxday
goobta qaraxaasi uu ka dhacay ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ahaa bac khafiif qaraxday. wuxuu ahaa waryaheena Ismaaciil waxaa inoo xigi doona baafin oo inoo baafin doono waryaheena Ismaaciil. baafin faa Ismaaciil Cali faa Boodcub waxay baafinaysaa hays sigaar oo kaga lumay isgooska 3 kunleed ee magaalada Kaagodi. Haddaba astaamaha lagu garan karo hayskaas sigaar waxaa ka mid ah dhexda ayuu u dhuudhuuban yahay halka afka horeyna uu ka balaaran yahay. Haddaba cid alaad aragta hayskaas sigaar waxaa xoog iyo muruq loogu codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan xafiiska wararka Isha Kafarta. kuwaasi waxay ahayn wariyaashii ka socday radio Isha Kafarta. daawadayaashana hawada aynu ku saaxiibnay intuu hawada barnaamijka baxay waxay idin daadiyeynay wariyaheena qaaliga ah Shaafici Shaafiinho intii ay seegtay warka waxa ay dib ugu daalacan kartaa